xafladan oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka Togdheer xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco bahda waxbarashada gobolka culimo awdiin haween mudan iyo marti sharaf kale ayaa ahayd madal isugu jirta maamuusid iyo sagootin loo sameeyay isuduwihii wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe haddana loo bedelay isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil mudankii iyo mas'uuliyiintii madasha ka hadashay oo ay kamid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer xubno kamid ah golaha deegaanka Burco bahda waxbarashada gobolka ayaa dhamaantood ka marqaati kacay doorka uu isuduwuhu ka soo qaatay kor u qaadida iyo taabaqaadka heerarka waxbarasho ee gobolka Togdheer gudoomiyaheennii hore Maxamuud Xasan Caynaashe oo wada garanaysaan oo la bedelay loona bedelay gobolka Saaxil ayaa waxaan ugu talagalay inaan sagootino saawtii gudoomiyaha waxbarashada gobolka ee naga tagaya waa garanaysaan gobolka intii uu joogay ama maamul ahaado dhaqaale ama gudoomiyaha waxbarasho uu ahaa xubnihi ugu waaweynaa ama ragga ku sultanaa waxqabadka gobolka Togdheer ee waxbarashada gobolka wuxuu isku waday dadkoo dhan qof walba wuxuu garanayay wuxuu mudan yahay wajigiisa ayuu dheehanayay taasina waa mid aanu runtii aanu isleenahay waa waxa ku xasuusan doontaan in aynu ognahay sanadadii u dambeysay ee uu gudoomiyaha joogay koorkii imtixaanaadka ilaa laga dheedo rikoorkii ugu dambeeyay ee evaluationkii waxbarashada taas ayaa muujinaysa waxqabadkii wasaaradda waxbarashada ee uu lagu hogaaminayay labadii sano u dambeeyay gudoomiyaha berigii hore waanu caban jirnay qolyaha iyaga private-kii waxaan oran jirnay war xagga public-ga la isu barbariyaa ninka waxaan qirayaa inuu isku tolay labadii maaragta qaybood ee barashada si wanaagsan inuu isku tolay si wanaagsan inuu isugu kaxeeyay de waxaanu ku raacinaynaa ducaanu ku raacinaynaa anagoo ka raaliya oo kugu faraxsan ayaanu ku sagootiyeynaa meel fiican meeshii ku sareysay markaa way laakiin aan la sii wado oo taa uu wadaan baan doonayna inay guul inoo noqoto qof mudakara in laga qaato runtii oo uu gobol kala tago oo mudakarnimadiisa in la arka taasina waa han gobolka uu leeyahay Maxamuud muddo badan ku jiray waxbarashada way muuqatay kadibtii daacadnimadiisii iyo horumarkiisii maantana waxaanu leenahay ilaahay uu fududeeyo xilka kale uu madan qiraya inuu yahay mas'uul qiimo badan oo firfircoon oo halkiisu yahay gobolka Togdheer ama uu ahaa sidii uu horumari lahaa ula tartami lahaa gobolada kale dhan kasta ay ahaato arrimaha bulshada Allah ta'ala waxaan rajaynayaa hadii isagoo kale aynu wada noqon lahayn maanta halka aan taaganahay wax badan baa iska bedeli lahaa dhankiisa isaguna waxa uga mahadnaqay xuska iyo maamuuska ay u muujiyeen bahda waxbarashada gobolka Togdheer mas'uuliyiinta iyo guud ahaan bulshada gobolku Maxamuud Xasan Caynaashe isuduwihii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Togdheer haddana ah isuduwaha wasaaraddaasi ee gobolka Saaxil munaasabadan ay u qiimeyseen aadka u bilan bahweynta waxbarashada iyo cidii kala shaqeysayba waan idinka mahad celinayaa sida u soo diyaariseen garashada garateen dhammaan bahweynta waxbarashada gobolka Togdheer waxaan uga mahad celinayaa muddadii yareed aan joogay ama muddadii aan gobolka ka shaqeynayay waxqabadka sheegteen inaanan anigu qaban keligay inaanan qabteen waxna aanay qabsoomeen ee ahaydeen tiirarkii iyo waxaan ku dhahdaa hawlwadeenadii halkaas soo gaadhay ahaydeen dhammaantiin idinkoo isku jira waa ii ducayseen ducada Allah ay aqbalo idinkana waa idin ducaynayaa waxaan idinku ducaynayaa midnimo si gaar ah wasiirka wasaaradda waxbarashada oo ku dhiiraday runtii arrin taariikhi ah oo aan soo dhaweynayno isku bedelka uu sameeyay waan soo dhaweynaynaa waana uga mahad celinayaa waa sunnad dawladeed waa arrin qiimo leh waa arrin taariikhi ah waxaan filayaa waxaan noqonaynaa duwayaashii ama gudoomiyaashii ugu horeeyay ee la isku bedelo cafis baan ka dhigay wixii cid kastaba iga soo gaadhay dhammaantiin idinkana waxaan idinka rajaynayaa in ay cafidaan بن آدم بالله wax kasta way dhacayaan Carabiga labadiisa daan baa isqaniina waa fahmi kay saxirsi bulsha TV Burco.